bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaan waxaad kusoo dhawaataan janaalkeena ka aha wararka oo aan kusoo gudbino xogihii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda. qodobada aan kusoo gudbi doono saakana waxaa qeyb ka noqon doona oo aadna idinkana daawan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo qorsheynaya dhismaha xukuumad cusub oo kala tegi kara. haddaba yaa ku jira xukuumaddaas waxaa lasoo sheegayaa oo xogta ay sheegaysaa in xukuumadda ay dhabarjab weyn ay ku sameyneyso mucaaradka. barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa. sidoo kale waxaad daawan doontaan haddaba ayaa ka dambeeya allah u naxariistay dilka sheekh caanka ahaa deegaanada maamulkaasi galmudug waan idiin soo gudbin doonaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan xog cusub waxa ay sheegaysaa khilaafka u dhexeeya hirshabelle iyo wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya oo markaasi weji kale yeelanaysa. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa daawadayaal. fadlan haddii aad ku cusub tahay oo janalkeena ka aha wararka aad ku cusub tahay subscribe-ka saaro, gambaleelkan furo una shirgalay saaxiibada meel kasta ay joogaan. waa naga codsi si aan usoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka, islamarkaana aan ku dhiirno inaan mar kastaba idiin soo gudbino xogihii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda. waxaan ku bilaabaynaa saaxiibaal. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxa uu qorsheynaya dhismaha xukuumad cusub oo kala tegi kara. haddaba xukuumaddaasi ayaa ku jira tallaabo lagu tilmaami karo qar isku turnimo, shacab hurdisiin iyo waqti dheereysi ayaa la xaqiijiyey inuu maalmaha soo socdo damacsan yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble, taas oo ah inuu dhiso xukuumad cusub oo wadaag ah, wasiiradana laga siinayo mucaaradka dalka. fikradan oo farmaajo gadaal ka riixayo roblena uu ka gaday mucaarad ku sheegka qadiyad la-aanta ah ama qeyb ka mid a mucaaradka oo awalba halganka gadaal ugu soo biray, ayaa ujeedku yahay in doorasho aan dhaqso laga qaban ama doorasho xilli hor ka dhacda dalka shacabkan lagu aamuusiyo dhismaha xukuumad ay mucaaradka ku jiraan. haddaba su-aalo badan ayaa la isku weydiinayaa arrintaas. su-aalaha la isweydiin karo waxa ay tahay doorasho maxaa ka galay xukuumad cusub oo la dhiso, sida wasiir caafimaad, waxbarasho, howlo guud, duulis, deked, ganacsi ama batrool iyo qaar kale. haddii shaqo la rabo may kuwaan sii wadaan doorashada la dedejiyo ama doorashada in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku qabtaan maxaa diidaya? waa su-aalaha la iska weydiinayo hanaanka xukuumadda karataykarka ah oo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo u dhisi karo, taas oo si weyn ay shaki badan ay ugu muujinayaan mucaaradka, islamarkaana lagu qancinayo in ay ka aamusaan arrintaas. dhinaca kale saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa qiray inay is-hortaageen lacago malaayiin dollar ah oo la dimacsanaa in lagu musuqmaasuqo, lacagtaas oo lagu talagalay hirshabelle arrimaha ka duwan hadalkii wasiirka maaliyadda ee ahaa inaysan jirin lacag la is-hortaagay. dadka aan la hadalnay oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay in khilaafka maamulka iyo wasaaradda ka bilowday shirkado aan jirin oo ay soo gudbiyeen madaxda hirshabelle si loo siiyo mashruuc dhismaha. shirkado aan la aqoonin oo saldhig iyo xafiis lahayn oo weligood markaasi shaqo qaban oo ah dad iska socda magaca shirkad wada documentis soo daabacday ayaa naloo keenay oo la yiri lacagta u dhiiba. wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya ayaa maalmo ka horbeenisay inay is-hortaagtay lacago deeq ah oo loogu talagalay hirshabelle kadib markii ay sidaasi sheegeen madax ka tirsan hirshabelle. waxaan caddeynaynaa in wasaaradda maaliyadda dowladda aan jirin wax dhaqaale ah oo ay ka xiriirtay dowladda hirshabelle, ayna sida ku cad qorshaha mashruuca kasoo kabashada miisaaniyadda ay howluhu u socdaan sidii loogu talagalay, ayuu yiri wasiirka maaliyadda ee dalka cabdiraxmaan ducaali beele. wasaaradda maaliyadda waxa ay guddi ka hortaga fatahaadda hirshabelle ka codsanayaan inay caddeemo ka bixiso lacagaha ay ku eedeynayaan dowladda dhexe ka xiriirtay wax ka qabashada la-aanta fatahaadda webiga shabeelle. dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibyaal, waxaa soo baxaya xog iyo macluumaad sheegaya cidda ka dambeysay allah u naxariistay shiiqa caanka ahaa ama shiiq caanka ahaa deegaanada maamulka galmudug oo markaasi dhowaan halkaa lagu dilay. xiisad ka dhalatay dilkii talaadadii lasoo dhaafay ee 11 bishan loo geystay shiiq caan ahaa oo meydkiisa laga helay xero u dhow magaalada galdadogo ayaa ka taagan magaalada gaalkacyo caasimadda galmudug. shiiqa la dilay oo lagu magacaabi jiray sheekh cali axmed oo ku magac dheeraa sheekh cali dheere ayaa waxaa markii hore laga afduubtay gurigiisa oo ku yaala koonfurta magaalada gaalkacyo, waxaana markii dambe meydkiisa oo si xun loo dilay lasoo dhigay meel 15 kilomitir u jirta halkii markii hore laga afduubtay. shiiqa la dilay oo ahaa qof ka shaqeeya howlaha sanfalka gaar ahaan u gargaaridda ilmaha agoonta, sidoo kalena ahaa madaxii guud ee jaamacadda imaam nawi ee mudug, ayaa waxaa dalkiisa ka dhashay banaanbaxyo ka dhacay magaalada gaalkacyo oo lagu dalbanayo in cadaalad la horkeeno dadkii ka dambeeyay dilkaas. waxaa jira warar kala duwan oo kasoo baxaya ciddii ka dambeysay dilkiisa,
iyadoona xog hordhac ah oo ay si gaar ah u iftiiminayso sida loo shirqolo shiiqa. waxaa in muddo ah shiiqa la dilay daba joogtay hay-adda waa hay-ad cid iyo guddi amniga galmudug oo shiiqa xiray dhowr jeer oo kala duwan, oo markii ugu dambeysana ay ahayd bishii abriil, markaas oo su-aalo lagu weydiiyey xerada ay degan yihiin ciidamada danab. waxaana su-aalaha weydiinayay hay-adda CID-da oo si gaar ah u baarta dadka loo heeso inay ka tirsan yihiin argagixisada. hay-adda CID-da ee guddiga amniga gobolka mudug ayaa shiiqa ku eedeysay inuu xiriir la lahaa al-shabaab, waxaana markii ugu horreysay laga qaaday telefoon la sheegay inuu shiiqa u isticmaali jiray lacagaha uu siiyo ilmaha agoonta ee waabyo. waxaa dhashay tuhun ku aadan in hay-adaha amniga ee gaalgacyo ay ka dambeeyeen dilka shiiqa, waxaana taasi ay keentay in magaalada dhuusamareeb laga soo diro xubno ka tirsan booliiska galmudug si ay baaritaan ay ugu sameeyaan saraakiisha hay-adda CID-da ee magaalada gaalgacyo ee tuhunka soo galay. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo una sheergaray saaxiibada meel kasta ay joogaan, adiguna like-ga commentigana inoo reebaya. aad baad u mahadsantihiin. ugu dambeyntiina saaxiibayaal, haddii aanu eegno madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa magaalada Kismaayo kulan kula qaatay taliyaha howlgalka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano Africom General Stephen Towson oo booqasho ku tagay Jubbaland. madaxweynaha ayaa taliyaha la qaatay kulan ay ugu wada hadleen sidii la iskaga kaashan lahaa dagaalanka al-shabaab oo haatan Jubbaland ka haysta deegaano badan oo ay ku jirto caasimadda rasmiga ee maamulkaasi ee Bu'aale. madaxweynaha ayaa kulanka la qaatay taliyaha ciidamada howlgalka Africom General Stephen oo booqasho ku tagay 4 bishan May ayuu sidaan oo kale Axmed Madoobe Kismaayo ku qaabilay saraakiil ka socotay ciidamada Mareykanka ee taliska Afrika ee Africom loo yaqaano. Jubbaland ayaana waxay sheegtay in ay diyaar u tahay in ciidamada Mareykanka ee jooga deegaanada maamulkaas ay kala shaqeyso sidii al-shabaab halkaasi looga xoreyn lahaa. waayahay saaxiibayaal, guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkiina ka ah wararka aan kusoo qaadanay wararkii ugu dambeeyey iyo xogaha xasaasiga ah ee arrimaha dalka ee waqtiga taagan. fadlan haddii aad nagu soo tahay subscribe saabka gambaleelkan furo una sheergaray saaxiibada meel kasta ay joogaan. aad baad u mahadsantihiin.